Ma fiicna daawaday inaad qof xamato maxaa yeelay qofkaad xamanayso waa adigoo kale. Waxaa jira qof markaad la socoto ama markaad la sheekaysanayso hadalka kuu macaaninayo oo marba meel kugu qaadaya, marka uu kaa leexdo ama markuu kaa hadhana aan waxba ka soo qaadeen waxaad maanta oo dhan kula sheekaysanaysid. Qofka kaa aqoonta badan ama indheergaradka ama kaa cilmiga badan weligaa ha yasin, boosku joogana ha ku caayin, ilaa aad u duceyso oo aad ku ammaanto waxa fiican uu qabanayo. Ha isku aaminin inaad tahay qof wax kasta qaban kara ama wax kasta u arka wax fudud. Waxaa jira qof isagoo hawsha qaban karin, markuu qof kale ku dhaho hawshan ii qabo ama wax ii qabo, isku dhaha waad qaban kartaa, dhahana waan kuu qabanayaa, hadhowna ku fashilma shaqaday isku direen iyagu. Sheeg waxay sheegayso ama qabo waxaad qabanayso, dadkana ha ugu faanin maxaa yeelay dadku way neceb yihiin qofka faanka badan. Dadka anfac waxna u tar, haddaad aragto dhalo meel taala ka qaad si aad ajar iyo xasanaad Ilaahay uga hesho. Kaga tag adduunka wax dadka anfaca si hadhow markaad dhimato lagugu soo xasuusto shaygan fiicanaad samayn jirtay, hadhowna ay dadku kuu soo duceeyaan. Yeelo hami sare, wax sarena samee ama wax fiican, mustaqbalkaagana ka fikir, hana ka caajisin waxaad meel kasta dhigtay. Ilaahay wuu kuu fududeyn doonaa insha Allahu tacaala.